بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Samo Maxamed ku soo dhawaada Samo Tech casharkan waxaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qaybtii labaad ee vector casharka koowaad vectorka waxaan uga soo hadlay hordhaca guud vector oo ahaa waxa vector la yiraahdo iyo farqiga u dhexeeya vector iyo array iyo functionality-ga vector ay kaga fiican tahay array casharkan waxaan si dhamaystiri doonaa saddex kale oo kamid ah functionality-ga vector oo kan koowaad aan uga hadli doono noqon doono bob kan kale oo noqon doono empty iyo insert laakiin intaan kulligood ka hadlin marka hore hadda vector-kayga waxa ay ka kooban tahay zero elements marka aan value siiyo ama element aan ku kaadsado marka sida caadiga ah sida array-do kale ayaad value-ha aad element-iga vector-kaada aad value ku siin kartaa tusaale ahaan oo kale hadda waxaan leeyahay first element-iga wuxuu noqonaa 9 waxaan leeyahay kan kalena waxaad ka dhigtaa 7 number 1 ka waxaad ka dhigtaa oo kale 7 sidoo kale index-ka labaad ama index-ka saddexaadna waxaad ka dhigtaa number 6 oo kale tusaale ahaan marka hadda kuwaan marka aan soo daawacayo sida caadiga waxaa isticmaali karaa for loop horaan uga hadla mar rabo maanta inaan videogan ku sharxo oo aan waqti ku lumiyo haddii aadan for loop fahansanin videoga for loop ka soo daawo waxaan rajeynayaa inaad si fiican u soo fahmi doonto insha Allah marka waxaan leeyahay int I is equal 0 semicolon I maxaan 0 uga bilaabo maxaa yeelay vector-kayga index-ka ka bilaabanayso waa 0 sida array-do kale waxay ka bilaabanaysaa from 0 saas darteed waxaan leeyahay marka 0 dan waxaan leeyahay index I waxay ka yar tahay marka v.size maxaa ka wada v.size casharkii horena waan uga hadlay vector-ka size-ka wuxuu soo celinaa number of elements-ka hadda number of elements-kayga waa 3 saas darteed wuxuu soo celinaa marka 3 marka I waxay soconaysaa marka from 0 ilaa number 2 sama 0 1 iyo 2 ayay soconaysaa dan waxaan leeyahay I si u socoto markasto plus ay ku sameyn marka kood waa 0 marka kale plus ay noqonaysaa number 2 number 1 ay tagaysaa dhaho marka kalena waxay tagaysaa 2 marka 3 noqotana condition-kan false ayuu noqonaa maxaa yeelay 3 kama yara 3 loop-kana wuu istaagaa marka sidaas ayuu igu soo saari doonaa dan waxaan leeyahay marka v waxaad ii soo saartaa I markasto line kastana end line ii sameey oo kan koowaad marka 9 aad soo saarto 7 waxaad ka bilowdaa new line ka bilaab end line-ka waxay ka dhigan tahay kan koowaad marka soo saarto line-kan dhamay element-iga kale intaadan daabicin ka hor new line ka bilaab marka hadda wuxuu ii soo saari doonaa 9 7 iyo 6 marka la dhaho akan wuxuu ii soo saaray 9 7 iyo 6 oo ah elements-ka igu jira array-dayda 9 7 iyo 6 ama vector-kayga dhaho waxaan rabaa marka in bob aan isticmaalo bobka marka si fudud waxaan rabaa marka inaan isticmaalo bob marka bobka si fudud waxaad dhigi kartaa vector name-kaada dan waxaa leedahay dot waxaa leedahay kadibna popback waa kaas popback muxuu qabanaa marka popback wuxuu remove gareynaa last element-iga oo vector-kaada ku jira number 6 ayuu meesha ka saari doonaa wax kale uu qabanayo ma jiraan hadda haddii aran dhaho waxaa ii soo bixi doona oo keliya 9 iyo 7 kan waxaa ii soo baxay 9 iyo
7 bob marka waxyaabaha loo isticmaalo waxaa kamid ah markii aad doonaysid in waxyaabaha loo isticmaalo waxaa kamid ah markii aad doonaysid inaad remove gareyso last index waxaa la isticmaalaa markii aad rabto inaad remove gareyso last element waxaa rabaa oo kale inaan ka hadlo empty maxay qabanaysaa marka sidoo kale asigana waxaa leedahay v.empty sidaas si lamid ah marka v.empty maxay qabanaysaa tusaale ahaan oo kale hadda aan print gareyno system cout and cout new line dheh wuxuu ku bilaabi doonaa marka line-ka ugu horeeya okay waxay soo bixi doonaa hadda 0 say ku timaada marka waxaa arkaysaa wuxuu soo daawacay empty-ga 0 si aad u aqoonsato aan kaaga hormariyo empty okay space le marka si aad u fahanto waa kaas empty waxaa soo baxay 0 maxay ka dhigan tahay marka 0 muxuu soo baxay waxaa jira programka markii aad sameynayso ama aad isticmaalayso waxyaabo la yiraahdo waxaa jira boolean booleanka wax kale ma aha waxay sameysaa oo kaliya ama aad ku ogaan kartaa oo kaliya waxyaabo laba naqanaya midkood tusaalahaan oo kale waxay naqanayaan kan ama kan sidoo kale wuxuu isticmaalaa marka laba waxyaabaha naqanayo sida 0 iyo 1 oo kale true iyo false oo kale leerarka oo kale marka la isticmaalayo kale leerkan wuu daaran yahay ama wuu dansan yahay tusaalahaan oo kale waa on ama waa off waxaa kaloo la isticmaali karaa xataa luqadka caadiga ah yes ama or no ama waxaa isticmaali kartaa oo kale af Soomaaliga caadiga ah ha ama maya marka hadda inta u soo laabto waxay noqonaysaa hadda waxaan weydiinay vector-kayga empty miya wuxuu soo saaray 0 daas maxay ka dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay no waxay ka dhigan tahay false waxay ka dhigan tahay maya empty miya vector-kayga maya laakiin haddii uu vector-ka empty ahaan lahaa wuxuu soo saari lahaa 1 kaas maxay ka dhigan tahay marka on ay ka dhigan tahay ha vector-kaada empty waa ay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay oo kale yes waxay kaloo ka dhigan tahay oo kale waa true marka waxyaabaha labada ah computerka isticmaalo asaas oo kale marka computerka wuxuu isticmaalaa oo kaliya 0 iyo 1 hadda marka vector-kan waxay soo celinaysaa integer value oo ah 0 ama 1 oo macnaheedu noqonayo waa boolean waa true or false okay marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay oo aad wixii maanta ka dambeeya empty maxay 0 soo saaraysaa maxay 1 soo saaraysaa aadan ku wareeri doon waxaa kaloo ka hadlaa marka insertiga oo waxyaabaha arrayda waxyaabaha vector-ka ee arrayda aad uga fiicanta arraydaado kale maanta haddii aad dhahdo array value elements igu keedsanaa ayaa waxaa rabaa element kale in aan dhexda ku daro way adag tahay oo waxaa u baahanaysaa oo kale shift inaad isticmaasho oo time ayaa kaaga baxaya dadka data structure-ka isticmaalo ayaa fahmi kara oo time ayay kaa qaadanaysaa inaad shifting sameyso oo aad kan kale aad ku bedesho kan kale aad kusii bedesho kan kale aad kusii bedesho oo swapka uu kugu bato oo complexity-gana waxyaabaha la yiraahdo data structure-ka ay kugu bataan marka laakiin vector-ka uma baahnid inaad shifting iyo waxyaabahaas aad sameyso waxaa u baahan tahay oo kaliya ah inaad dhahdo v.insert inaad dhahdo kaliya u baahan tahay marka insertigan waxay ka kooban tahay laba qayb qaybta koowaad waxaa gelaya address-ka aad rabtid in value-ha aad ku keedsato iyo element-ga aad rabto in lagu keediyo marka su-aasha waxay tahay address-kan sidee ku ogaana tusaale ahaan oo kale hadda vector-keyga v I haddaan dhaho oo 0 wuxuu soo saaraa hadda aan isla ognahay in element-ga koowaad oo sidaan igu soo daawacay laakiin haddii aan ka hormariyo calaamadan ampersand
haddii aan ka hormariyo waxaa ii soo bixi doona addresska elementiga koowaad uu ku kaydsan yahay. tusaalahaan oo kale si aad u ogaato inta aan kaaga hormariyo address kadibna space leh waxaa kuu soo bixi doona addresska elementiga koowaad uu ku kaydsan yahay computerkaaga. waa kan hoos u deg marka la run dheh waxaa noo soo baxay waxay leeyahay error address was not declared in this scope. okay waxaan sameynay address kan comment naga saar maxaa yeelay inta addresskan iyo elementigan ma garanayo computerka. okay errorka halkan ayuu ka yimid. okay kan kor u qaad marka si aan iskula aragno. waa kan addresskan waxay ka dhigan tahay memorygaada elementiga koowaad meesha computerkaada uu kaga kaydsan yahay memoryga ayaa addresskan hadda inoo soo muuqdo oo ay u dambeyso E0. marka addresskiisaan hadda ku ogaaday waxaa kaloo kan la mid marka wax la yiraahdo bigan oo vectorka isticmaalo. bigankan waxay ku soo celinaysaa elementiga ugu horeeya ee vectorkaaga. ana waxaan rabaa marka hadda meeshan waxaa ku arkaysaa 9 iyo 7 waxa inta u dhaxaysa waxaan rabaa inaan geliyo 8 oo kale. 9 iyo 7 ayaan rabaa inta u dhaxayso 8 inaan geliyo. marka addresska koowaad waa ogahay in meeshaan markaan imaado kan commentiga hadda iga qaad si aan iskula aragno commentiga marka meeshaan markaan imaado aan dhaho v.bigan waxay ka dhigan tahay kan addresska koowaad igu kaydi elementigan oo ah 8. hadda run hadaa dhaho meeshii 9 waxaa lagu kaydin doonaa meeshii 9 ahayd waxaa lagu kaydin doonaa 8. okay marka sidaa ma rabi ani inaan u dhaxaysiiyo ayaa waxaa soo baxay error fara badan. okay to errorka ka jira errorka intuu maxaa leeyahay waxaa ka tegay inta sim kale. okay good waa kan waxaa soo baxday 8 oo meesha ugu horreysay tagtay kan 9 7 laakiin ana sidaan ma rabin waxaan rabay 8 9 iyo 7 dhexdooda inaan 8 geliyo. marka meeshaan aan tagaa waxaan leeyahay +1 oo addresska kala tag elementiga 8 igu kaydi. hadda waxay noqonaysaa marka 9 8 7 waa kan tasliimaan waa kan 9 8 iyo 7 oo sidii aniga aan rabay. waxaan rajaynayaa in sartigan aan fahamtay ujeedada videogan ka lahayna in ka dhigtay oo aad maanta wixii ka dambeeya vector aad sida aad doonto u isticmaali karto. inta videoga xiga ama cashirka xiga aan ka gaari doono waxaan idin leeyahay fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.